السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك قالي meel kasta adduunka ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub. waxaa idin rajeynaa inaa caafimaad qabtiin intii xanuunsan ilaahay noo caafiyo intii naga dhimatan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. waxaan idin kusoo dhaweynaa channelkeena Anfac Official. haddana nagu cusub tahay subscribe-ka naga iloobin, haddana la joogtana waa ku mahadsantaa la joogaaga. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha Allah maalin kasta dad cusub igu soo darsoomo channelkeega. way ku mahadsantihiin runtii dhiirigelin ay tahay. ha ka iloobina like-ta iyo subscribe-ka ka iloobina. aad u mahadsantihiin. way marka qaar ku soo saaraya inta qof oo subscribe ka saartay oo inta dadka kula socdo dadka saaray iyo dadkan saaray marka waxaa arkaysaa dad badan oo kula socdo haddana subscribe-ki aan ku saarin kul wax macna ma keenaa meel la iska taabanayo waay. laakiin Soomaaliya askana anaga alxamdulillah ilaa Soomaali naga dhigay. walaalahay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yar. runtii arrimaha uurka aad ay gabdhaha uga heleen wixii fikrad aad qabtid amba wax aad jeceshay inaan kasoo hadlan hoos igu soo qor insha Allah tacaala. waxaan rabaa inaad la qabsado qodob runtii aad u muhiimsan oo ku saabsan haweenka uurka leh iyo dhibaatada marka qaar la soo daristo. marka walaalahay dhibaatadaas aan rabaa inaad la qabsado waxana waaye haddaa isku aragta calaamadahaas waa inaad dhakhtarka hore u gaartaa. calaamadaha haddaa isku aragto aad uur leedahay oo isbuuci 18aad aad dhaaftay dhakhtarka u tag. 4 bil hadaa dhaaftidba dhakhtarkaaga tag. calaamadahaas marka maxaa ka mid ah hadda koorna soo sheega u maleynayaa. calaamadahaas waxaa ka mid ah walaalahay madax xanuun aadan hore isugu arag oo soo booda ah. mararka qaar waxaa laga yaabaa madaxa markuu ku xanuunayo inuu madax xoogaa tartiib ku xanuuno oo haddana hal mar si fiican ku sii wada xanuuno. laakiin madawska fadhid madax hal mar lagu dhufto dhash oo ku xanuuno oo weliba xanuun aadan weliga arkin oo ku xanuuno. markaas waxaa laga yaabaa ma fiicno calaamadaas ma fiicno madax xanuun soo booda ah oo aad ku xanuunay ma fiicno. calaamadaas aad isaga ilaalinaysaa. waxaa kaloo isaga ilaalinaysaa oo kale aragtidaada problem ka imaado macnaha aragtidoo daciifta. indhahaaga waxaa laga yaabaa marka caadi iftiinka oo kale inuu ku dhibo. waxaa laga yaabaa caad inay indhaha kaa soo saarmo. waxaa laga yaabaa hadduu ilaahay kuu roon yahay inuu maxay ahaydey labalo wixii aragtid macnaha waxaa arkaysaa bakeeri meel yaalo bakeeriga 2 kulo noqonaya. bakeeriga 2 kulo noqonaya wax kasta 2 kulo noqonayaan. marka waa problem ka imaada xagga indhaha waaye. ayadan aad isaga ilaalinaysaa. ilmaha indhaha inuu caad kaa soo koro inuu maxay ahaydey indhaha ka bararto hoostooda inuu shaygii aad fiirinaysa 2 kulo noqdo. waxyaabahaas ayadana ma fiicno. haddaa isku aragtay dhakhtarka hore u gaar aad uur leedahay 4 bilna aad dhaaftay. maxaa kaloo iska ilaalinaysaa kulle meesha waxaa nagu soo diyaariyay 6 qodob. hadda qodobkii labaad aan mareynaa. qodobkii saddexaad muxuu yahay? qodobka saddexaad wuxuu yahay caloosha in lagaa qabto weliba caloosha qaybta kore. qaybta hoose mindhicirka waaye mugta waana normal. hooyada markay uur leedahay mindhicirka inuu xanuuno caadi waaye taas ilaa meesha minkiya ku jiro minkiya sii korayo sii fidaayo normal waaye taas. laakiin caloosha qaybta kore oo boga hoosteeda weliba anaga waxaa dhahnaa kilida meesha lafta ma aragtay lafta meesha ku dhamaatay feeraha lafta u dambeysa hoosteeda kiliya xanuunaysa anana meesha qabsan meesha laakiin kilida ma ahan caloosha geeskeeda waaye. caloosha geeskeeda weliba qaybta kore hadee ku xanuunta ayadana iska ilaali waaye ma fiicno. uurkana shaqo kuma lahan waayo uurkaaga calool xanuunka uurka wuxuu caloosha caadi inay ku xanuunto oo calool majiiris iyo shuban oo ku qabta uurka caadi waaye. iyo in caloosha hoos ay ku xanuunto mindhicirka markuu ku xanuunayana waxa waaye minkii oo sii weynaahayo waa ilaa minka maalin ka dambeyso oo sii fidayo cunuga sii weynaahayo maasha Allah ilaahay awoodiisa waaye. qodobka afraad wuxuu yahay adoo isbuuci 18aad dhaaftay haddaa isku aragtid matag iyo lalabo joogto ah. lalabo joogto ah isbuucyada 10 iyo 11 iyo 12 loogu talagalay inaad lalabo isku aragto matag. laakiin lalabo iyo matag gooni haddaa isku aragtid weliba aad isbuuca 18aad aad dhaaftay ayadana wax qurux badan ma ahan. insha Allah waxaan ka codsanaa dhakhtarka inaad hore u gaartid hadduu ilaahay yiraaho. isbuuci waxaan mareynaa qodobkii 5aad soo maahan. qodobkii 5aadna wuxuu yahay walaalahay inay indhaha ay kaa bararaan. bararka indhaha markay kaa bararaan oo iisoo sheeg indhaha hoostooda weliba yaa indhaha hoostooda kaa bararayo. waxaa kaa bararayo wejiga waxaa kaa bararayo gacmaha waxaa kaloo iyadana kaa barari kara lugaha
lugaha iyo gacmaha markay kaa baraan wajiga indhaha hoostooda ayadana ma qurux badno oo bararkaas ma fiicno marka jira dadka qaar waxay dhahaan bararka waa caadi lugaha kale markay xoogaa ku baraa oo weli marka uurkaaga maalmaha u dambeeya aad maraysid waxaa laga yaabaa culeyska inuu sababo laakiin uurkaaga oona soo dhadhaweyn oo bil ama 2 bil ku dhiman tahay bararkina calaamadaha aan soo sheegay la socdo sida madax xanuunka indhihi oo saas ku ah oo caadkaas oo koray amba aragtida ku dhibayso caloosha geeska kor ku xanuunayso lalabo oo uurkan uur dhexdhexaad ilaa 5 bil ilaa 6 bil 7 bil oo yaa 8 bil iyadan u tag bararkaas ma fiicno dhakhtarku inaa u tagtaa rajeynayaa waxaan kaloo walaalahay rabaa inaa idin la qaybsado hadduu ilaahay yiraaho maxay ahaydey qodobka u dambeeyo qodobkan ayadana waxa waaye inaad isdareentid xanuun inaad iska dareentid macnaha xanuun iska dareent waxaan ka wadaa meel gooni ku xanuunaysa ma ogid laakiin jira dareemaysaa dhaxan ku heeso hadduu ilaahay ku roon yahay adna si maqanta u fiigsan tahay waa jareehaysaa waxyaabahaas oo kale mugta waxa waaye dareenka xanuunka waaye macnaha waxaad dareemaysaa inaa xanuunsan tahay laakiin ma ogid meel laga hayo si isaga wajacsan tahay marka ayadana markaa isku aragtid walaalahay waxaa idinka codsanayaa dhakhtarka inaa hore u gaartid gabar maalinleed iisoo qoraysa arkay xanuun aan ka sheekeynaa waxay tiri xanuunkaana isku arkay baay dhakhtarka inaa u tago marabo dhakhtarka waxaa ka cabsaa inuu ifooliyo haddana waa idinkugu soo celinaa dhakhtarka cunug waqtigiis u dhiman yahay ma foolinayaan xilligay foolinayaan waxa waa amba waa inay hooyada waxaan hadda sheegaya ay qabtaa amba cunugii korinsho aan lagu talagalay si lagu talagalay uusan u koreynin amba cunugii macnaha caafimaad ahaantiisa xag caafimaad ahaantiisa oo problem ka jiro adi marka cunugiina kaalinta maarata baay amba adi aad dhimatid waa maya dhakhtarka waa qasab baay dhakhtarka cunug yar oo 6 bil jooga ma jiro ma soo bixi haay laakiin cunugaaga baay 7 bil hadduu dhaafo adduunku wuu horumar hadda caawinaad weyn uu helayaa waxaan ku dhahay maasha Allah tabaaraka aniga gabar walaashay alxamdulillah 7 bil ilmaheedu ku dhashay haddana maasha Allah ilma caafimaad qabo ordaya waay marka dhakhtarka hadduu arko in caafimaadkaaga ama cunuga caafimaadkiisa ee ku jirto in cunuga ciyo waqtigiisa la gaar la dhaliyo oo la soo bixiyo hay'adda abaay ilaan adiga waxaan aqoon u malihid dhakhtarka aqoon u leh marka dhakhtarka yaan laga cabsanin waxa waa qofka kaliya waxa waa maanta aqoon u leh oo soo bartay oo jaamacad u dhigtay waaye wuxuu sameeyay og marka aad inta buufis isgelinaysiin gabdhow waxa ku dhimanina meesha oo cunugan iyo ku dhiman adina meesha ha ku dhimanin tiisa dilaa dhimayso waa run laakiin ilaahay wuxuu ku yiri dadaal anagana waa kula jira intaas dardaaran iyo dhiirigelin waa walaalahay videoga hada ka insha Allah like iyo comment ka bixi ina share gareysana aadan kugu mahad celinayaa subscribe ka hay loobin please subscribe la'aanta aada oo la yaab dadkiina kula socdaan oo channelka la socda hadana subscribe ka isa saareen oo hadana wax macna maanta aysan u soo kordhinaynin marka hadaa ka heshanay muuqaalka insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad ka soo bixiso comment oo wixii fikrad ah ay la qaybsatid assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala barakaatuh